Arsene Wenger oo sharaxay sida Mbappe uu u fashilay difaaca Barcelona kulankii El Clasico. Arsene Wenger ayaa amaanay weeraryahanka Real Madrid Kylian Mbappe kadib door muhiim ah oo ku lahaa guushii 2-1 ee El Clasico, isagoo tilmaamay sida uu si xeelad leh uga faa'iideystay qaladaadka difaaca ee Barcelona. Wenger oo la hadlayay beIN Sport ayaa yiri, Barcelona waxay weyday Inigo Martinez oo khibrad badan leh, sidoo kale kama maqneen oo kaliya Martinez ee waxaa kaloo ka maqnaa Lewandowski iyo Rafinha oo iyana ahaa laba ciyaaryahan oo khibrad leh. Barcelona maanta bisel la'aan ayay muujiyeen. Wenger wuxuu sheegay in Mbappe uusan kaliya ku tiirsaneyn xawaare, balse uu si aqoon leh u qorsheeyay dhaqaaqiisa. Mbappe wuxuu u sheegay ciyaartooyda qadka dhexe, waxaan kaliya sameyn doonaa orod u dhaxeeya daafacyada dhexe, markasta oo kubadda haysataan fiiriya. Taasi waa sababta uu ugu socday si toos ah meelaha ay difaacyadu ka filayn. Mbappe ayaa goolka koowaad u dhaliyay Real Madrid isagoo jebiyay offside-ka Barcelona, wuxuuna gaaray goolkiisii 12aad ee uu ka dhaliyay kooxda Barcelona waayihiisa kubadda cagta. Waxa uu haystaa 17 gool oo uu dhaliyay Real Madrid tartamada oo idil 16 kulan oo uu saftay xil ciyaareedkan. Inkasta oo ku guuldareystay rigoore uu qaatay qaybtii labaad, haddana Mbappe ayaa mar kale muujiyay sababta uu yahay mid ka mid ah weeraryahanada ugu khatarta badan dunida. Xawaare balaas go'aan qaadasho balaas fahamka ciyaarta waxa ay noqotay dhibaato joogto ah oo ay difaacyadu wajahaan. Barcelona dhinacooda waxay u muuqdeen kuwo si fudud looga gudbayo gadaal, iyadoo maqnaanshaha khibradda safkooda difaaca uu ka dhigay mid jilicsan oo ay Real Madrid si fiican u beegsadeen. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobnayd ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.